ololaha gabdhaha Lubnaan ee gayaankayga meherka waanu cafiyay guumays ma noqon karo iyo guurka hal la fududeeyo ayaa ku baahay baraha bulshada ee Carabta haweenka Lubnaan ee ku daalay xudxudashada haasawaha ragga guurdoonka ayaa fariin u diray waalidiinta ka macaasha guurka gabdhaha waxayna ku baaqeen in la joojiyo ku xujeynta ragga lacago aysan awoodin ololahan ayaa kiciyay muran baahsan oo ka dhacay baraha isgaarsiinta bulshada jeebka ragga oo laga dayrinayo qulqulka taariibka dhalinyarada iyo maciishada qaaliga ee Lubnaan oo hoos u dhigtay guurka ayaa haweenka ku khasabtay inay ku dhiiradaan erayo ay weligood laabta ku haysteen balse afka in laga sheegaa ay ku adkayd haweenku waxay cod dheer ku sheegeen inaysan u faruuriyo xiraan doonin rabitaanka waalidiintooda oo dhowraya inay u soo golo fariistaan rag maalqabeeno ah iyagoo tilmaamay inay doonayaan jacayl dhab ah nolol xasiloon iyo naxariis ay ku koolkooliyaan ragga gayaankooda ka calmada dadyowga caalamku waxay leeyihiin caadooyin kala duwan sida ay u kala weyn yihiin dalalkooda juquraafi ahaan sida hidaha ilbaxnimada iyo dhaqanka waxaa xukuma xeerar diimeed iyo mid bulsheed oo la iska dhaxlo kuwaasoo siiya sharciyada iyo qanacsanaanta guurka labada lamaane ee nolosha ku heshiiyay laakiin waxay waafaqsan yihiin caadooyinka meherka xad-dhaafka ah iyo kharashka guurka oo badan kaasoo lagu tiriyo inay caan ku yihiin dunida Carabta kacdoonka guurdoonka ah kaliya kuma koobna gabdhaha Lubnaan laakiin waxa ku soo biiray gabdho Carbeed oo ka soo jeeda Masar iyo Sacuudiga kuwaasoo iyana ay dhibaato ka haysato caado dhaqameedyo dhigaya in dhaqaale badan laga qaado cidda u soo gogol fariisata dhammaantood waxay baraarug ka abuureen barta Twitter-ka iyagoo adeegsanaya hashtag meher la'aan guurso guurka haweenka ee Lubnaan ayaa hoos u dhacay 5 sano ee la soo dhaafay taasoo loo aanaynayo duruufo dhaqaale oo ragga soo food saaray iyo maciishada dalka oo kor u kacday waxaase dalka naadir ka ahaan jirtay in la arko gabar 30 jir ah oo aan la qabin ama guur soo marin habeenkii Arbacada ayaa ku haween Lubnaaniyiin ah waxay olole ka bilaabeen baraha internetka iyagoo faafiyay halku dhiga guurso meher la'aan ololuhu wuxuu ku faafay dalal badan oo Carbeed waxaana ujeedkiisu yahay in lagu xaliyo dhibaatooyinka kufsiga iyo in la dhimo qiimaha laga bixiyo gabdhaha la guursanayo sida laga soo xigtay hal abuurayaasha fikradan gabdhaha Lubnaan ayaa sheegay inay dhibsadeen kelmadda guumays ayaa tahay maadaama da'doodu ay 30 cagacageynayso iyagoo gabdho gashaantiyo ah Radwa Khalid oo ah gabar 30 sano jir reer Lubnaan ayaa sheegtay inay aad uga damqanayso dhibaatada ku gadaaman hablaha Lubnaan gaar ahaan kororka kufsiga iyo ku adkaysiga qoysaska ee caado dhaqameedka dhaqaalaha looga fadhiyo xididkooda waxay inta raacisay inay la kulantay masiibadii ugu weyneyd oo ay ku tilmaamtay waalidkeeda kadib markii ay ka weynaatay da'da 30 sano iyadoo guur la'aana maadaama dhowr jeer oo hore loo diiday wiilal ay jacayl wadaag ahaayeen ragga guurdoonka ah ee Lubnaan oo ah kuwa ugu badan ee ka falceliyay in loogu yaboohay meherkii gabdhaha gayaankooda ah ayaa aad u soo dhaweeyay waxayna dawladda ka codsadeen in la soo dejiyo sharci dhigaya inaan ragga laga qaadi karin lacago dheeri ah marka ay u soo gula fariistaan xididkooda ay gabadha ka doonayaan